xuska sanad guurada 25aad ee ka soo wareegtay maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May ayaa si weyn looga xusay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley. munaasabadani oo ay iskugu soo baxeen kumanaan kun oo qof oo ka tirsan dadka reer Gabiley oo socod gaardis ah ku soo maray jidka halbowlaha ah ee magaalada Dhexmara, iyagoo oo salaan siiyay barasaabka gobolka Gabiley iyo maayirka magaalada Gabiley iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada. haddaba mas'uuliyiintii halkaa ka hadashay ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: Soomaaliland ha noolaato. waxaynu u dabaaldegaynaa munaasabadii 25 guuradii aynu kala soo wareegnay dib u soo noqoshadii madaxbannaanida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waynu u ducaynaynaa. waxaynu soo galnay halgan dib u xoreyn qaran, waxaynu soo galnay halgan horumarin Soomaaliland, waxaynu soo galnay halgan aynu ictiraaf ku raadinayno. waxaynu 25 sannadood kadib gaadhnay horumar la taaban karo. taageerada aynu la barbar taaganahay madaxweynaheenna heshiiskii uu la soo galay shirkadda imaaraatiga ah ee horumarinta dekedda. heshiiskaas oo ah heshiis taariikhi ah, insha Allah biidnillaahi baari taariikhdu ay xusi doonto haddii ilaahay raalli ka noqdo. taalo dekedda labaad ee loo yaqaano dekedda qalalan ee Wajaale wuxuu faa'iido u yahay dhallinyarada Soomaaliland ee camal la'aanta ka cabanaya. waddankaasi wuxuu ku salaysan yahay nabadgelyo, horumar, kalsooni iyo isku tiirsani. waxaa kaloo salaan qaaliyaal baan uga dirayaa dadweynaha sharafta leh, samirka badan, dulqaadka badan ee gobolka Gabiley. waa Cabdirashiid Salmaan Muuse, Somali Cable TV, magaalada Gabiley.